نوفمبر sagaalkeedii sanadkii 1953 waxaa geeriyooday boqor Cabdicasiis Aal Sacuud oo ahaa aasaasihii dawladdii Sacuudiga oo dhismaheedu bilaabmay sanadkii 1902 ilaa kama dambaystii uu ku dhawaaqay dhismaha boqortooyada Sacuudi Carabiya sanadku markuu ahaa 1932 haddaba maxaad ka taqaanaa taariikhda boqorkii aasaasay Sacuudiga Naabuliyoonkii Carabta waa sida loogu waco maanta barnaamijkeena xogdoon waxaan ku jeexjeexi doonaa taariikhda boqor Cabdicasiis aasaasihii boqortooyada Sacuudiga fadlan intaanan muuqaalka guda gelin waxaan ka codsanayaa inaad videoga like dhaadii si uu bulsho badan u gaaro sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid ayaduna waxay noo tahay dhiirigelin iyo dardar cusub ku soo dhawow barnaamijka oo faahfaahsan baliminkan aynu barnaamijkeena hore u galno Cabdicasiis Aal Sacuud wuxuu January sanadkii 1876 ku dhashay magaalada Riyaad oo qoyskiisu ay ka talin jireen laakiin waxa maamulkoodii jabiyay qoys kale oo la oran jiray Al Rashid oo xukumi jiray magaalada Haa'il oo ku taala gobolka Najd oo loolan uu kala dhaxeeyay taasina waxay sababtay isaga oo aan 10 sano gaarin in qoyskiisu ay ka qaxaan magaalada Riyaad aabihi Cabdiraxmaan bin Faysal bin Turki Aal Sacuud wuxuu ahaa imaamkii ugu dambeeyay dawladdii labaad ee Sacuudiga hooyadiina waa Sara bin Ahmed الكبير بن محمد بن تركي بن سلمان السديري sanadkii 1902 ayaa isaga oo wata ciidan 6,000 oo nin ah waxa uu ka baxay dalka Kuwait waxayna raggaas iskugu jireen taageerayaashiisa iyo qaraabadiisa wuxuu weerar ku qaaday magaalada Riyaad oo uu ku guuleystay inuu qabsado dadkii deegaanka ayaa kula mubaayacooden inuu amiirkooda noqdo bishii September sanadkii 1904 ayuu dagaal ka dhacay Al-Shanaana kaga guuleystay ciidanka Al Rashid wuxuuna gacanta ku dhigay magaalada Qaasim kadibna waxa uu maamulkiisa ku fiday gobolka Najd badankiis sanadkii 1912 waxa la asaasay dhaqdhaqaaqa Ikhwaanul Muslimiinka oo caqiidadiisu tahay Wahaabi kaasoo degdeg u fiday waxaana taageero weyn siiyay Cabdicasiis qudhiisa sanadkii 1913 ayaa Cabdicasiis oo wata ciidamadiisii u ruqaansaday dhanka Al-Ihsaa waxaana ku guuleystay inuu Cismaaniyiintii ka qabsado sanadkii 1921 ayaa ciidan u wato Amiir Faysal bin Cabdicasiis waxay qabsadeen gobolka Caziir bishii September waxa uu suurta gashay in magaalada Haa'il oo ahayd qalcadii ugu dambeysay ee ay haysteen reer Al Rashid uu qabsado waxa uuna si buuxda gacanta ugu dhigay gobolka Najd isla ayuu Cabdicasiis isku caleema saaray suldaanka Najd dhanka Xijaas marka la eego xiriirka uu la lahaa Sharif Xuseen bin Ali oo xukumi jiray waxa uu ahaa mid dhibaato badan hase yeeshee ciidankii Aal Sacuud waxa uu galay magaalada Daa'if iyo Makka sanadkii 1924 laakiin waxa difaac adag galay ciidamadii Jidda joogay oo ciidankiisa go'doomiyay ilaa 17 December sanadkii 1925 isla sanadkii 1926 ayaa Cabdicasiis lagula mubaayacooday xaramka dhexdiisa inuu noqdo boqorka Xijaas dawladdii iyo kacdoonkii Ikhwaanka duruufihii siyaasadda dunida ee wareegi jiray awgood oo Ingiriisku fadhiistimo kaga samaystay xeebaha qaliijka Carabta ayaa suurta gelisay in Cabdicasiis Aal Sacuud uu dhidibada u sii aaso dawladdiisii oo uu casriyeeyo si ay ugu suurta gasho inuu uga hortago Ikhwaankii ay isbahaysiga lahaayeen ee diiday inay joojiyaan duulaanadii ay ku qabsadeen qaar ka mid ah dhulkii jasiiradda Carabta waxayna arrintaasi keentay inay isku dhacaan labadii garab sababtu waxay ahayd in Cabdicasiis isagu uu aqoonsanaa xuduudaha Ciraaq Kuwait iyo Urdun oo Ikhwaanku ay diidanayeen waxayna weeraro ku qaadeen Ciraaq iyo Kuwait waxayna sidoo kale dileen amiirkii dawladda markii la qabsaday gobolka Xijaas oo ay u arkayeen dhaqamo ka jiray qaarkood kuwa aan diinta Islaamka sal iyo raad ku lahayn ayay qaadeen tallaabo aan maamulku ogolayn Ikhwaanku waxay diideen inay u hoggaansamaan amarkii Cabdicasiis ee ahaa inaan laga tallaabin xuduudaha oo aan la weerarin Ciraaq iyo Kuwait waxayna taasi keentay in labada dhinac dagaal goradda isku daraan goobta la yiraahdo Al-Zulafaa bishii Maaj sanadkii 1929 halkaasoo lagu jabiyay Ikhwaankii oo ay u baxsadeen dhanka Kuwait deetana ay isku dhiibeen ciidamadii Ingiriiska ee halkaa joogay magacii dawladda ee ilaa sanadkii 1921 ahaa imaaradda Najd iyo Ihsaa waxa loo bedelay saldanada Najd ilaa sanadkii 1922 ilaa markii dambe sanadkii 1932 si rasmi ah loo shaaciyo taabagalka boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaana Cabdicasiis Aal Sacuud lagu taxay magacyo badan oo ka mid yahay Naabuliyoonkii Carabta iyo boqor Sulaymaan Cusmaan In 1927, Abdulaziz became king
and set out to master the political and social forces that would lead his kingdom to regional and waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. fadlan walaal waxaan kaa codsanayaa haddii uu ku cajabiyey inaad videoga like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid ayaduna dhiirigelin ayay noo tahay. waad ku mahadsan tahay la joogaaga.